rabaa wixii dhacay in la saxo wax kale meesha ka jira ma jiraan waxaan rabnaa xukunka inay ku dhawaaqaan culimada ma la doonayo konflikt inuu dhex yimaado bulshada reer galbeed ama bulshada Puntland midna waxaan rabnaa dadku inay ku qancaan waxa ay doorteen oo hadalkii Ilaahay inay doorteen ku qancaan kuwa dhibanayaasha ayaguna dambiilayaasha wax loo haysto kulli inay ku qancaan waxaan rajaynayaa sida u doorateen aad ugu qanci doontaan anaga saan u ballan qaadnay inaan muxuu ahaa faragashan xukunka aan ka noqono inaan caawino sida lagu heshiiyeyna in loo fuliyo tacsiiraadka inta ka hartay inay ku dhamaystirtaan xabsida dawladda insha Allah dulaaheedmo taariikhdu markii ay ahayd 28 bishii 12aad 2016 waxay guddi waxgarad ah oo degmada Galdogob loo xil saaray hawsha tan u doorteen arrinta tan in ay ka xaakim noqdaan culimada insha Allah magacyadooda hoos ay ku qoran yihiin marka ka bacdi culimada waxay taxkiim waxa ku raali noqday markii hore shareecada islaamka oo ku cawday dhinacyadii arrintaani ay khuseysay markaas ka bacdi culimadu waxay guddigii ugu yeereen in ay arrintaas qadiyadaas ka xukunka shareecada islaamka ay ku xukumaan waxay ku eedeeyeen shirwac jaamac shire geesood waxay kaloo ku eedeeyeen ayaanle maxamuud cali carshe waxay ku eedeeyeen yaxye cabdullaahi aadan afdhuub waxay ku eedeeyeen yaasir maahir xaashi iyo cabdirasaaq xoosh jibriil iyo ninka la yiraahdo bashiir cabdisamed maxamed cali oo asagoo aan hadda goobta joogin gacantana aan lagu hayn arrimahaas markii ay ku eedeeyeen jawaabihii ay ka bixiyeen ninka ugu horeeya oo la yiraahdo shirwac wuxuu ku jawaabay eedeymaha loo soo jeediyey oo uu qirtay inuu kufsaday labada gabdhoodba ayaanle maxamuud cali carshe khasabna uga sinaystay kana mid ahaa raggii afduubay waxay kaloo soo bandhigeen wakiilu dacwayaashu in isagoo samaynaya faaxishadii ninka saddexaad oo la yiraahdo yaxye cabdullaahi aadan afdhuub isagu wuxuu inkiray dhammaan wixii lagu eedeeyey ka bacdi markii dhaar loo bandhigay oo inuu ka dhaarto wixii uu inkiray wuxuu qirtay inuu ka sinaystay shareecadu waxay dhaarisay xamdi waxay ku dhaarisay wuxuuna ku dhaaratay inuu khasab kaga sinaystay kana mid ahaa raggii afduubay waxay soo bandhigeen oo kaleeto in uu isagoo faldambiyeedkii samaynaya ninka la yiraahdo yaasir maahir xaashi wuxuu qirtay labada gabdhood ninka la yiraahdo cabdirasaaq xoosh jibriil wuxuu qirtay waxayna ciqaabtu u kala badsadeen siday faldambiyeedka foosha xuma ugu kala badsadeen nin walba xukunka ku dhacay waa sidan shirwac jaamac shire geesood 200 oo jeedal 10 sano xarig ah iyo 4620 oo xuquuqda gabdhaha ah 3520 xamdi baale 1760 ridwaan ayaanle maxamuud cali carshe 10 jeedal 8 sano xarig ah iyo 2560 oo ah xuquuqda ridwaan yaxye cabdullaahi aadan afdhuub 100 jeedal 7 sano xarig ah iyo 1760 oo ah xuquuqda xamdi yaasir maahir xaashi 200 jeedal 6 sano xarig ah iyo 3520 oo ah xuquuqda gabdhaha 1760 ridwaan 1760 xamdi cabdirasaaq xoosh jibriil 100 jeedal 5 sano xarig ah iyo 1760 oo ah xuquuqda xamdi gabdhaha mid kasta xaqeedu markii la isugu geeyo waa sida tan ridwaan cabdifataax cabdulaahi xaqeedu waa $6080 xamdi abshir cabdile xaqeedu waa $8140 fiiro gaara wiilasha xabsiga hadday dhamaystaan lama sii dayn karo iyadoon la bixin xaqa gabdhaha culimada xukunka gaadhay sheekh cabdul yaasiin isxaaq sheekh cabdullaahi maxamed cali sheekh xasan taahir cali cabdi
sheekh yuusuf xasan xuseen iyo aniga oo mahad cabdulaahi maxamed ah